kulanti wanaagsan daawadayaal, halkani waa galka wararka oo aad ka heli doontaan wararka gudaha iyo caalamkaba. Qodobada wararka maanta ugu waaweyn waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in jawaab degdeg ah ay ka bixisay warbixin ka soo baxday dowladda Kenya oo sheegaysa in xeebaha dalkaasi ay Soomaaliya shidaal ka baarayso. Odayaasha dhaqanka beelaha dega gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxa ay ka hadleen xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. Ciidamada dalka Kenya ayaa gurigiisa kala baxay aqoonyahan Soomaaliyeed oo caan ah oo dalkaasi Kenya ku noolaa. Muranka xuduud badeedka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya oo aan falanqeyn idinkaga sameyn doono dhanka taariikhahan dib u fiirin doono. Qodobadaas iyo qodobo kale oo warkeena ku jira ayaad goor la socon doontaan. Daawadayaal, haddii aad ku cusub tahay channelka galka wararka, subscribe dheh si aad u rukumato isla markaana aysan kuu seegin warbixinada iyo wararka aan halkan soo gelinayno. Haddii aan ku bilaabo, dowladda Soomaaliya ayaa jawaab degdeg ah ka bixisay warbixin uu qoray dhowaan wargeyska dalka Kenya ka soo baxay The Standard, kaas oo sheegaya in dowladda Kenya ama dowladda Soomaaliya ay deegaanada soodinta ee dalkaasi ay leedahay ka baarayso shidaal. Wargeyska The Standard ayaa baahiyay wuxuu sheegay inuu ka helay wasaaradda batroolka Soomaaliya oo muujinaya 5 ka mid ah ceelasha shidaalka laga baaray inay ku yaalaan soodinta ee badda Soomaaliya Kenya u dhaxaysa. Wargeyska waxa uu sheegay in wasaaradda batroolka Soomaaliya soo bandhigtay shidaalka laga helay 15 xirmo oo ku yaala gobol Galmudug, Hirshabelle iyo xeebaha Lamu oo ku yaala xadka labada dal. Xirmooyinkan shanta ah ayaa Kenya sheegaysa inay ka mid yihiin kuwa ay leedahay, isla markaana waxaa ka mid ah xirmooyinka 189, 190, 204, 218 iyo sidoo kale 219. Sarkaal ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka ee Soomaaliya oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in warkaasi uu yahay mid been abuur ah, isla markaana aysan jirin xirmooyin saliid Lamu laga baarayo oo dowladda Soomaaliya ay ku lug leedahay. Wasaaradda waxay cadeynaysaa in sahminta shidaalka laga sameeyay Soomaaliya ay ku egtahay xeebaha koonfurta dalka ku yaala oo aysan ka mid ahayn ilaa laga soo gaaro deegaanada Galmudug. Cabdiqaadir Abikar ayaa ka digay in bulshada lagu maran habaabiyo warar aan sax ahayn oo quseeya xaaladahan oo kale. Shirkadda Spectrum oo ah shirkadda baaraysa ama wada sahminta shidaalka Soomaaliya ayaa horey u beenaysay in ay sheegashada dowladda Kenya ay sax tahay oo ay ku jirto goobaha sahminta laga sameeyay. Goobta haatan ay ku muransan yihiin ee badweynta Hindiya ee labada dowladood ee Muqdisho iyo Nairobi, haatan maxkamadda dambiyada ama maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay haatan ka sugeen go'aankeeda. Ciidamada dalka Kenya ayaa waxa ay xalay la sheegay in gurigiisa kala baxeen siyaasiga ama aqoonyahanka Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ee dalkaasi Kenya ku nool. Mr. Bursaliid ayaa la sheegay in xalay gurigiisa ay kala baxeen saqdi dhexe ciidamada dalkaasi Kenya ee sirdoonka, sida ay ka soo xiganayaan warar laga helay ehelada aqoonyahanka. Ehelada ayaa sheegay in xalay saqdi dhexe ciidamadu isugu jira kuwa dharcad ah iyo kuwa hubeysan ay yimaadeen guriga uu degan yahay ama kuga nool yahay magaalada Nairobi, kadibna halkaasi ay ka wateen isaga ayagoon sheegin meesha ay la aadeen iyo sababta loo xiray. ilaa haatan lama oga sababta Bursaliid loo xiray, waxaana eheladiisa ay sheegeen inay isku dayeen inay ogaadaan. Ciidamada Kenya ayaa xiray ayaa la sheegay inay qayb ka tahay ololahan la dagaalanka argagixisada ee dalkaasi Kenya, kuwa oo haatan la sheegay inay xireen. Dr. Bursaliid ayaa caan ku ah falanqeynta arrimaha siyaasadda gobolka ee guud ahaanba gobolka Geeska Afrika Soomaaliya ay ku jirto, waxaana uu si weyn uga caan baxay warbaahinta Soomaalida oo sanadihii u dambeeyay si weyn u falanqeyntiisa ay ula socdeen. Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay macallimiinta wax ka dhigta jaamacadda Nairobi. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in dhowaan ay soo diyaarisay liis ay ku jiraan magacyada siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin dowladda Soomaaliya ka tirsan, kuwaas oo laga mamnuucayo inay soo galaan gudaha dalkaasi Kenya. Waxaana liiskaasi la sheegay in 66 ruux ay ku jiraan oo aan laga ogolaan inay dalka Kenya ay cagta soo dhigaan.
weli muranka dalka Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya ayaana ku guda jirnay. Dowladda Kenya ayaa la sheegay in mar kale ay eedeyn u soo jeedisay dowladda Soomaaliya taasoo ku saabsan in xeebaha gobolkaasi Lamu laga baarayo shidaal, taasi oo warbaahinta dalkaasi Kenya ay baahisay. Haddaba haddii aan fiirino muranka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ee dhanka badda ku saabsan, waxa uu taariikh ahaan yahay sanadihii u dambeeyay iyo sanadkii 2009 bishii Abriil 7 2009 dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda dalka Kenya ayaa waxa ay saxiixdeen is-afgarad ku saabsan qalfoof-badeedka Soomaaliya oo MOU loo soo gaabiyo. qalfoof-badeedkaasi waxaa barta ay ku kulmaan labada dal badda ama xadka ay wadaagaan. Isfahamkaasi dhinaca Soomaaliya waxa uu saxiixay Cabdiraxmaan Abshakuur oo xilligaasi ahaa wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga. Dhanka Kenya waxa uu saxiixay wasiirka arrimaha dibadda xilligaasi Dr. Moses Wetangula. Heshiiskaasi kuma jirin wax la xiriira xadka badda, balse waxa uu ka dhignaa hanaankii loo mari lahaa sidii loo xalin lahaa khilaafka xadka ee u dhexeeya labada dowladood. Agosto 1 sanadkii 2009 baarlamaanka Soomaaliya oo dood dheer ka yeeshay kadib ayaa cod aqlabiyad leh oo ballaaran ugu codeeyay heshiiskaasi in la laalo islamarkaana uusan ahayn mid sharci ah. Kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen baarlamaanka ayaa gebi ahaanba lagu diiday xitaa dood ku saabsan arrinkaasi in dib loo dhigo, iyadoon wasiirka arrinkaasi khuseeyaan la siiyay inuu fursad uu faahfaahin kaga bixiyo. July 13 sanadkii 2015 sanad kadib markii lagu wargeliyay maxkamadda inay dacwad u gudbisay Soomaaliya ayaa si rasmi ah kiiska badda loo geeyay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee ICJ ee dalkaasi Netherlands. Xeraalyaha Soomaaliya Dr. Axmed Cali Daahir oo la hadlay BBC-da xilligaasi ayaa sheegay in arrintan ay go'aankeedu gaarto kaliya maxkamaddaasi, halka xeraalyaha guud ee dalka Kenya ee Kithiu Mwani oo asna BBC-da la hadlay sheegay in Soomaaliya aysan xaq u lahayn inay kiiskan geyso maxkamaddaasi. December 18 sanadkii 2017 dowladda Kenya ayaa xareysay jawaab ka bixinta kiiska Soomaaliya ay ka gudbisay maxkamadda ICJ. Xeraalyaha guud ee dalka Kenya oo ku dooday in maxkamadda aysan xaq u lahayn inay go'aan ka gaarto kiiskan, waxa uu codsaday in arrintan labada dal ay xaliyaan oo ay ka wada hadlaan. Soomaaliya ayaa iyaduna dhankeeda bixisay jawaabteeda oo ku aadaneyd codsiga Kenya ee maxkamadda ka dalbatay in lagu xaliyo murankan dibadda maxkamadda. Xeraalyaha Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa ku adkaysay in Soomaaliya ay u aragto in maxkamaddu ay tahay goobta kaliya ee lagu xalin karo, waxayna xukuumaddiisu diiday doodii Kenya ahayd ee labada dhinac inay is-afgarad ka gaaraan islamarkaana ay isku waafaqaan xeerkaasi sidii arrinkaasi loo xalin lahaa. Soomaaliya ayaa doodeedii kiiskaasi uusan sharci ahayn maadaama uu diiday baarlamaanka Soomaaliya oo heshiiskaasi MOU-ga gebi ahaanba meesha laga saaray. February 2 sanadkii 2018 maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay ICJ ayaa go'aan ka gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. Xaakimka maxkamadda ayaana cadeeyay kiiskan kadib markii ay ka hadleen si sharci ahaan dooda Soomaaliya iyo Kenya ay soo gudbisay. Hayeeshee maxkamadda weli ma aysan qaban taariikhda la dhageysan doono dacwadda. February 7 sanadkii 2019 ee aynu ku guda jirnay Soomaaliya waxa ay London ku qabatay shir ku saabsan shidaalka Soomaaliya oo suuqgeyn lagu sameeyo ama marketing waxa afka qalaad lagu yiraahdo. Wasiirka Batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo BBC-da u waramay ayaa sheegay in goobaha sahminta laga sameeyay ay ku jirto qayb ka mid ah badweynta Hindiya ee Soomaaliya Kenya ay ku muransan yihiin, isagoo sheegay in Soomaaliya ay leedahay go'aanka la xiriira arrinkaas inta ay maxkamadda cadaaladda ee ICJ ay go'aanka ugu dambeysay ka soo saarayso. February 16 sanadkan 2019 Kenya ayaa waxa ay
ka noqotay safiirka Soomaaliya, waxayna sidoo kale codsatay in safiirka Soomaaliya dalka Kenya uu wadankiisa dib ugu laabto. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa sheegtay in shirka shidaalka ee Soomaaliya London ka dhacay lagu xaraashay hanti Kenya ay leedahay, taasina awgeedna ay sheegeen in ay cabasho ka qabaan arrinkaasi. February 17 sanadkan aynu ku guda jirno 19 danjiraha Soomaaliya ee ku sugan Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa Muqdisho ku soo laabtay kadib markii lagu amray in wadankiisa dib ugu laabto. Odayaasha dhaqanka ee ku nool deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya ayaa waxay ka hadleen xiisada u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ee muranka badda ku saabsan. Odayaasha dhaqanka ee beelaha Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ayaa ka hadlay xiisadan u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya, waxayna soo jeediyeen in la dhameeyo khilaafkan arrimo dhanka diblomaasiyadda lagu xalliyo. Odayaashan oo uu ka mid yahay Maxamed Gaabow Dubad Caymoy iyo Xasan Cusmaan ayaa ku baaqay in laga laabto kiiska maxkamadda yaala, isla markaana lagu xalliyo arrimo dhanka wadahadalka ah. Dowladda Soomaaliya ayaa ku gacan saartay wadahadal muranka badda laga galo oo lagu xalliyo meel maxkamadda dibaddeeda ah. Maxamed Gaabow ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin kuwo xiriir aad u qoto dheer leh, isla markaana loo baahan yahay in wixii khilaafaad ah ay si hoose u xalliyaan. Waxa uu sheegay inay jirto xiisad sii kordhaysa u dhaxeysa labada dal oo taasina dhibaato kale. Dhinaca kale, Dubad Caymoy ayaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo ugu baaqay in si degdeg ah ay u bilaabaan wadahadal xal loogu helayo xiisadda laguna wanaajinayo xiriirka labada dowladood. Xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in saameyn aad u ballaaran ay ku yeelatay muwaadiniinta Muqdisho ku dhaqan. Muddo ka badan 60 cisho ayay xaalad go'doon ah ku jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka, taasoo dhibaato ay ku qabaan shacabka ku nool gobolka Banaadir. Magaalada go'doonka ku jirta ayaa muddo laga bilaabo bil in ka badan waxa ay ahayd ka hor bishii Ramadaan, haddana weli ma dhammaanin, waxaana weli jirta in dadka ku nool goobaha ee magaalada gudaheeda la sheegay inay dhibaato ku qabaan, waxaana gaadiidkooda ay iska soo xareeyeen, kuwo kalena halka ay isaga guureen deegaanada go'doonsan oo ay u guurayaan. Warbaahinta ayaa waxa ay ogaatay in 60 cisho kadib waxaa laga yaabaa in magaalada Muqdisho ay hesho dhowr qof oo ka mid ah saraakiisha booliiska iyo wasaaradda amniga oo arrinkaasi ka hadlaya. Dadka la hadlay warbaahinta qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in go'aanka amniga dalka ay soo xaqiijiyeen inay go'aan cusub laga gaaro magaalada oo muddo 3 bil ah sidan oo kale sii ahaato. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in saraakiisha ay xaqiijiyeen inay ku guuleysteen baajinta weeraro aad u badan oo Al-Shabaab ay la damacsanaayeen magaalada Muqdisho. Saraakiishan oo magacooda sheegin sababo la xiriira ayagoon la ogolaan in warbaahinta la hadlaan ayaa sheegay in baaritaanada haatan yihiin kuwo isdaba joog ah, isla markaana laga yaabo in xaaladda sidan xoogaa laga khafiifiyo, balse aysan suurtagal marnaba ahayn in wadooyinka la furo. Maantana shir jaraa'id magaalada Muqdisho ku qabteen siyaasiyiin iyo odayaal ka soo jeeda Muqdisho waxa ay dowladda kaga cawdeen xirnaanshaha wadooyinka, ayagoona ka codsaday in la furo wadooyinka isla markaana loo ogolaado dadka masaakiinta ah inay isticmaalaan wadooyinka. Waxay ugu baaqeen in loo baahan yahay in madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale dowladda ay u turaan dhibaatada shacabka haysta, sida ay hadalka u dhigeen. Sidoo kale ay doonayaan inay helaan masiirka ama maqaamka magaalada caasimadda Muqdisho, isla markaana loo sameeyo bay yiraahdeen maamul goboleed si la mid ah gobolada kale ee dalka, taasi oo laga yaabo in aysan haatan diyaar u ahayn dowladda ama madaxda qaranka ee Villa Soomaaliya. Guud ahaan daawadayaal, wararkii aad kala socoteen galka wararka inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. Markastaba waxa aan idin soo gudbin doonaa wararkii u dambeeyay gudaha waddanka iyo caalamkaba khuseeya. Mahadsanidin.